بسم الله الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم howlgalladii dalka ka socday gaar ahaan dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug sidoodii bay u socdaan howlgalka ugu dambeeyay hadda wuxuu ka socday Mudug shalay iyo daraato howlgallada Bacadweyn area ka socday ciidanku guul fiican buu ka gaaray khasaaraha anagana soo gaareen oo aad buu u yaraa cadowgana khasaaro badan baa gaaray cadowgana magaalooyinka waaweyn markii laga qabsaday waxay isku dayayaan inay ku dhex faltamaan dhulalka dhirleyda ah meelaha buuraleyda ah meelaha ay ku dhuuntaan ciidankana sifayn bay ku wadaan marka howlgalladaasu way socdaan waxaana wali loo sii baahan yahay in la sii xoojiyo howlihii abaabulka kicinta iyo isku dubaridka iyo howlgelinta xoogagii kacdoonka shacabka ama difaaca shacabka ay wadeen dowlad goboleedyada gobolada iyo degmooyinka baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo saraakiisha howlgelinta dib in howlgalkii wuu socdaa iyagina way shaqeynayaan laakiin abaabulka in la jibaaro mar kale si aan noogu sii waraaqin arrintooda oo labada dowlad goboleed inta looga takhaluso loo gudbo waajibaadyada kale ee loo qorsheeyay howlgalka iyo dib u xoreynta dalka markii dagaal dhaco oo ciidan jabo ama ha ahaado kuwa argagixisada ah ama kaawa ahaado dowlado dagaalamay wax iska najra laha jira taas waxa weeye in saraakiishu iyo madaxdu is eedayso adaana jabiyay adaa waajibka gudan waaye taas waxay keentaa gacanka hadal uu dhexdooda ka dhaco ashaab dhexdiisana way ka dhacday oo dhibaatadaas way ka dhacday waxaa mideeda kale jirta waxaa aad u yaraanaysa kalsoonida lagu qabo hoggaanka iyaga hoggaankooda kalsoonida lagu qaba yaraanaysa ninkii awal fursad uu kaga baxsada waayay oo lahaa oo kusoo dabagelaya meel bay ka heli karaan hadda wuxuu helayaa meel uu ku gabado ciidan uu u yimaado gobol uu tago madaxa dowlad goboleed ama degmo ama deegaanka u dhashay oo intuu ku carara uu tago oo ku nabadgeliyo helayaa taasna waxay daliil u tahay jabka ciidamada dagaalada adduunka marka ay dhacaan ciidankii markuu laba jeer soo jabo marka saddexaad ma dagaalamo ciidanka eryanayo isu dhiibaa soo u dhiman wuxuu aaminayaa inuu mar walba dhimanayo oo jabayo marka hadda marxaladaas saddexaad oo ahaa jab koowaad baa dhacay jab labaad baa dhacay dhammaan deegaanadii labadaas dowlad goboleed ee degmooyinkii tuulooyinkii beelihii dhulbeeleedyadii daaqsimeedkii deegaanadii oo dhan ayagu maamulayeen baa gacantooda ka baxay taas waxay keenaysaa khilaaf dhexdooda ka yimaado inuu bilowmo is-eedeen inuu bilaabato qaarkood inay dilaan qaarkood qaar kale inay uhiliyaan nin walba inuu ku fakero markuu jabkaasu faraha badan dhaco meeshii uu ku badbaadi lahaa iyo meeshuu aadi lahaa saas darteed mar dhow waxaad arki doontaan amiirre waaweyn oo isa soo dhiibaya marka waxaa la rabaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ahu kooxaha in lay sameeyaan qayb ka mid ah bulshada oo u taagan wacyigelinta iyo hadalka oo taada furmaha imaada oo laga soo saaro dadka qaar baa khasab ku raacay qaar baa been loo sheegay oo lagu yiri dowlad baa noqonaynaa raaca dadkii marka in arintaas soo dhiibista la dhiirigeliyo warbaahinta dhexdeeda laga dhiirigeliyo bulshada dhexdeeda laga dhiirigeliyo hogaamiyaasha dhaqamada laftooda ay xiriir inta la sameeyeen wiilasha yaryarka ah inaa hadda 9 jir iyo 10 jir ay ka haysteen oo ay rabaan inay qarax ku soo xiraan anaga dilkooda waxaa nooga faca wiilka yarka inta noo yimaado oo bulshaweynta Soomaaliya ku soo biiro oo qarannimadiisa iyo dalkiisa dib u dhiskiisa ka qayb qaato yaa nooga wanaagsan marka in taas la sii xoojiyo u baahan tahay haddana isa soo dhiibistaas iyo kala yaacaas inta ka yaacaysa oo gobolada wadamadaas kale iyo deegaanada baadiyaha ay qabi reerahooda deganayeen galaysa ka sii badan inta dowladda soo dhiibeysa in badan baa kala yaacaysa oo kala tagaysa taasuna in marka lama howlgalku soo socdo kullama jabka iyo khasaaruhu uu gaaro waxaa sii badanaya kala furfurka ciidan waxaa lumaya hogaaminta waxaa lumaya isku xiraanta waxaa yaraanaya kalsoonida la isku qabo madaxda dhexdeeda isku qabta ama ninka la dagaal gelinaya ninka amiirkiisa ah madaxda uu ku qabo iyo nin walba soo gacanta wax ugu dhigi lahaa oo dhul nabad u raadsan lahaa meel ugu carar doon lahaa mar dhowna isku day doonaan amiiradu dadii dheerayd oo aan la dagaalameynay argagixisadan ama nimanka al-shabaab saraakiisha ugu horeysay xabadda ku bilowda kamid aha mar kaste oo isdhiibad ay dhacdo
waxaa aada iyo aad loogu shaki uusan ku jirin inay shakhsiyaad kusoo darayaan ama information xoog ha geeyo ama ha isku qarxiyo waxa dadka isa soo dhiibaya meel xarun gaara ha lagu xareeyo dad aada in dheer garad ahoo baarista ku fiican oo booliiska inuu isugu dayo laga soo xulay iyo in military intelligence-ga ha loo geeyo baaristaas ka bacdi wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo majmuc culamaa Soomaal inta galaan nusuusta diiniga ha lagu qarxiyo ninka ha lagu qanciyo ninka xataa ayagu ay soo direen howlaha gaarka u soo direen marka la yiraahdo maxaa ku dhimanaysa quraanka waa kan xadiiska waa kan jahannamaad galaysaa qofku isbedelaya qalbigiisu isbedelaya laano ninkan reemiyo aha xoolo dhaqato aha beer qodato aha nin iska miskiin aha waa loo yeeray waxa la diintu waxa weeyaan iyo jannadu qof bini aadam ha disho ilaahayna wax uu xaraameeyo uu uga carab badan yahay male qof mu'min ama qof islaam dhigiisa bilaash lagu daadiyo marka arrimahaas in ay ku soo dhex gabanayaan shaki kuma jiro in badan ay soo dhiibasho kuma jiro dadkaas nidaamkii dawladdu u qorsheysay oo ahaa sarandi lagu xareeyo baaris lagu sameeyo wacyigelin loo sameeyo culimada waa mid ugu muhiimsan waxa la yiraahdaa waa in qofka waa in maskaxdiisa la dhaqo laga dhaqo ficilkii foosho xumaa dhaqankii xumaa diinta khaladka laga fahamsiiyay laga dhaqo oo nolosha u iftiinto oo ilaah ka cabsiga u iftiimo oo qofka uu iimaanka u soo noqdo inta waxa la yiraahdaa isbedelka xaaladda taktikada dagaalka taktikada dagaalku waa noocyo badan tahay haddaad qaab ku guuldaraysato waa la bedelaa mid kale loo bedelaa jirta ciidanka la dagaalamayana middaas midda didkeeda ah oo loo bedelaa jirta oo laga daba tago lagu burburiyo nimankan marka hore waxa isku dayeen in deegaanadii ay difaacdaan sida iyo Sooman iyo Moqorkori iyo masaajid Cali Guduud iyo Aadan Yabaal iyo deegaano badan ba isku dayeen inay difaacdaan oo adkaystaan burbur badan iyo dhimasho badan iyo dhaawac badan iyo khasaare badan baa ku dhacay khasaarahaas ku dhacay awgeed waxay garteen marka haday ogaadeen waxay xaqiijiyeen in lagaga awood badan yahay inay isdifaacaan oo weerarka dawladda ciidamada dawladdu iyo bulshaweynta Soomaaliyeed ee ciidamada difaaca shacabka Soomaaliyeed la yiraahdo howlgaladooda inay iska celin karin oo laga tiro badan yahay laga hub badan yahay laga moraal fiican yahay deegaanka looga aqoon badan yahay waxaas oo dhan waxay keentay jababkoodii jababka markay keentay waxay u bedeleen inay taktikada bedelaan taktikada maxaa loo bedelayaa waxaad ka samraysaa inaad magaalo difaacato balka mid difaacan kartid laakiin maxaad ku badbaadaysaa oo sameynaysaa in wiilku ku noolaado ku dagaalamaya oo hadhow uu ambush sameeyo jidka galo oo hadhow dooxato uu sameeyo oo dagaalku aad ku dheerayso ciidanka kula dagaalanaya dagaal ku dheerayso saas darteed ciidamada qalabka sida ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo cutubiyada kale oo difaaca shacabka taktika laga nooceeda loo bedelaa jira oo lagu diriro waqti tabta dagaalka ciidamada dhoo ku qorantay kuliyadaha lagu barto kullu waa ku qorantahay hadda halkan ka sheegayno warbaahinta mid loo bedelayo taasa loo bedelayaa oo mid aan dhabarkeeda ka jabinaysa dhibaatooyin kale way leedahay waa maxay magaalada ka carartay biyay lahayd dhaawac baad keensanaysay barahaaga hogaaminta iyo taakulaynta ku joogtay nin magaalo joogaad ahayd kayn baad gashay kayntaas markaad gasho nolosheeda iyo dhibaateeda aad u xog badnaanaysaa marka midaas tabta dagaalka ee midaas lagu burburin karo nimankaas lagu baabi'in karo ayadoo laga faa'iideynayo tabiicada dhulka deegaanada habnololeedka bulshada habnololeedka deegaanada dhaqaalaha bulshada meelaha ay dadku shacabku degan yahay tabtaas dagaalka in qodobkii kale ee tabta dagaalka ee lagu dagaalamayay waa in ciidamadu u badashaan hadda dabcan waa u badasheen tii shalay dagaalka soconayay noocaas qayb kamid ah ay ahayd wixii hawlgalkaas ugu sameynayay